Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhegeystayaal, halkani waa Udgoon Media oo aad kala socon kartaan channelka YouTube-ka ee Udgoon Media iyo Facebook page-keena udgoonwood.com. waa maalinimo Sabti ah, taariikhdana ay ku beegan tahay 10-ka bisha 3-aad ee 2018. kuna soo dhawaada barnaamijka waxbarashada oo hadahan oo kale aad oga barateen Udgoon Media. waxaa barnaamijka aalaaba idin soo diyaariya halkaana idinkaga soo tabiya aniga oo ah Qaasim Nuur Maxamed Aaja. dhegeystayaal, barnaamijkeena waxbarashada qaybtiisa 11aad waxaan oga hadlaynaa dowladda Rwanda markii ay ka soo baxday colaadda iyo dagaaladii sokeeye, sidee baa isbeddel loogu sameeyay waxbarashada. siyaasadda guud ee dowladda ay ku adkeynaysay midnimada qaranka, dib u heshiisiinta iyo kasoo bogsashada colaadda waxay ahayd mid laga maamulayay gudaha nidaamka waxbarashada heerka qaranka iyo midka deegaankaba. ujeedooyinka waxbarashada, qorshaha waxbarashada iyo manhajka qarsoonba dib u qeexid ayaa lagu sameeyey, sida lagu cadeeyay cilmi baaris la sameeyay 2006. siyaasadahan cusub waa kuwa diiradda lagu saarayay waxyaabaha ay wadaagaan dadka reer Rwanda oo aan lagu sheegaynin waxyaabaha la isku khilaafsan yahay, oo ujeedkuna yahay mustaqbal wanaagsan oo uu hogaaminayo dhaqanka iyo qiyamka, kaasoo hormuud u ah midnimo iyo isku tiirsanaan, sharaf wanaagsan iyo xurmo loo hayo awoowayaasha. halkudhiga ah kulligeen waxaan nahay dad Rwandees ah ayaa la faafiyey iyada oo faafinta loo isticmaalayay wadooyin kala duwan oo warbaahintuna ku jirto, sida uu cilmi baaris ku cadeeyay Freeman 2008. sidaasi la mid ah ayaa Bosnia-Herzegovina waxaa la bilaabay isbeddel dhanka waxbarashada ah markii la gaaray heshiiskii nabadda ee loogu magac daray Dayton Peace Agreement. qorshaha isbeddelku wuxuu ahaa mid looga hortegayay xiisadaha isirka ku salaysan iyo sidii looga gaashaaman lahaa in mustaqbalka uu dhaco dagaal isir ku salaysan. waxyaabaha kale ee la qiray waxaa ka mid ahaa in dadka la siiyo waxbarasho tayadeedu sareyso ee iskuullada isku dhafka ah ee dadyowga dhaqamada kala duwan, taasoo xor ka ah siyaasad, diin, dhaqan iyo waxyaabaha kale ee keeni kara yasmo ama takoor, sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha bulshada ee Bosnia-Herzegovina 2004. hanaanka, baaxadda daraasadda iyo qaabka cilmi baaris ee tayada afka qalaadna loogu yaqaano qualitative research ayaa loo isticmaalay markii daraasaddan la sameynayay, sababtoo ah cilmi baaruhu ma uusan rabin inuu sii saadaaliyo jawaabaha ay bixinayaan ka qaybgalayaashu, balse wuxuu rabay inuu sahmiyo sida ay ka qaybgalayaashu fikrad ahaan u arkaan arrimaha baaritaanka lagu waday. guud ahaan 32 qof ayaa ka qayb gashay daraasadda. wareysiyada waxaa la qaaday intii u dhaxaysay bishii March amaba Maarso 2013 iyo bishii November 2014. wareysiyada waxaa lala yeeshay 7 macallim, 10 maamule iskuul, 4 gudoomiye dalladeed, 7 waalid, 2 shaqaale sare oo ka mid ah wasaaradda waxbarashada iyo 2 ka mid ah wakiilo ururada caalamiga ah. sharciga waxbarashada ee golaha wasiiradu meelmariyeen
xagaagii sanadkii 2004 iyo qabyo qoraalka siyaasadda waxbarashada ee ay dejisay wasaaradda waxbarashada ayaa iyagana loo isticmaalay cilmi baarista. haddaba waxaa halkaasi inooga muuqda in loo baahan yahay fikir iyo siyaasad lagu horumarinayo waxbarashada dalka Soomaaliya iyadoo loo adeegsanayo dhaqanka suuban iyo qiyamka diiniga ah. dhegaystayaal, qodobka labaad waxaan oga hadlaynaa qaabka ay cilmi baarayaashu u mareen si daraasadda loogu bandhigo bulshada. waxay isticmaaleen siyaasad dhanka hufnaanta ah, sida in qofka warbixin laga siiyo daraasadda, xuquuqda uu qofku u leeyahay in uu ka bixin karo ka qayb qaadashada daraasadda, iyo in qofka loo xaqiijiyo in aan magaciisa lagu xusi doonin daraasadda. daraasaddan waxaa laga qaaday gobolka Banaadir oo ah magaalo madaxda dalka Soomaaliya ee Muqdisho, oo inta badan ka qaybgalayaashu ay ka shaqeeyaan. natiijada ka soo baxday waxay noqonaysaa mid ka tarjumaysa aragtida dadka ka qaybgalay. marka la aqrinayo natiijada daraasadda, waxaa iyaduna mudan in maskaxda lagu hayo in daraasaddu ay yool leedahay, taasi oo muujinaysa koobnaanta daraasadda. gebi ahaanteedba waxaa diiradda lagu saaray waxbarashada aasaasiga ah ee hoose, dhexe iyo sare, balse aanan la baarin heerka kale ee waxbarashada dalka ka jira. natiijada iyo falanqaynta daraasaddan waxaa lagu ogaaday in nidaamka waxbarashada Soomaaliya ay haystaan caqabado adag oo dhinacyo kala duwan leh, kuwaasoo ay ka mid yihiin nabadgelyada iyo amniga macallimiinta, ardayda iyo waalidiinta, dhismayaasha iyo xarumaha iskuulada oo liita, laanta waxbarashada dowladda oo maqan, waxbarashada gaarka loo leeyahay oo aan lahayn shuruuc hagta, culays xagga dhaqaalaha ah, macallimiin aan tababarnayn iyo jiritaan la'aanta fursado tababar oo kor loogu qaadayo xirfadda macallimiinta, siyaasadda luqadeed oo liidata, caqabado la xiriira manhajka iyo kuwa kale oo badan. daraasadda ma doonayno in aan wada falanqayno dhammaanteed, waxaase ugu muhiimsanaa qodobo 3 ahaa oo aan horey oga soo hadalnay, kuwaasoo inta badan ka qaybgalayaasha daraasadda ay ku soo celcelinayeen, kuwaasi oo kala ahaa manhajka, siyaasadda luqadaha iyo caqabado la xiriira macallimiinta. aragtida ay qabaan qaar ka mid ah ka qaybgalayaashii soo jeediyay isticmaalka luqadaha qalaad ma ahan mid ka tarjumaysa xogta laga helay daraasadda laga sameeyey mowduucan. dooda ku saabsan luqadda rasmiga ah ee loo isticmaalayo waxbarashada dalka waa mid horay uga dhex socotay dadka ka shaqeeya waxbarashada, balse waxay ahayd mid aysan ku jirin dadweynaha iyo dowladda labadaba. meelmarinta luqadda wax lagu baranayo tan ay noqonayso waa go'aan looga fadhiyo dowladda, balse go'aankaasi waa inuu noqdaa mid lagu jaangooyo xog iyo cilmi baaris la sameeyey, iyo in isha lagu hayo mustaqbalka iyadoo la eegayo doorashadaasi saameynta ay ku yeelan karto luqadda, haybta iyo dhaqanka. maamule iskuul ayaa ka dhawaajiyey in xirfad la'aanta macallimiinta ay tahay arrinta ugu daran ee waxbarashada qaranka soo food saartay. barayaasha waxaa lagu shaqaaleeyaa iyadoo loo eegayo amaba la weydiinayo, macallin ma noqon kartaa, dadka wax ma bari kartaa,
waxaa jira macallimiin tiro yar oo haysta takhasusyo maado. Hogaamiye daladeed ayaa ku dooday, waxaan u baahannahay macallimiin haysta takhasus macallinnimo. Macallimiinta ka qalinjibiyey culuumta ganacsiga iyo teknolojiyadda ayaa ka badan kuwa ka qalinjibiyey kuuliyadda macallinnimada. Dad badan oo macallimiin noqday ayaa markii hore bartay takhasusyo kale. Taasi waxaa caddeen u ah, waxaan ka bilaabay in aan ka shaqeeyo iskuulkan qaybta maaliyadda. Waxaan ahaa xisaabiyaha iyo qasnajiga. Markii dambe waxaan noqday macallinka fasalka koowaad, ayuu yidhi mid ka mid ah dadkii daraasadda ka qayb galay. Dhegaystayaal, daawadayaal, qodobka ugu dambeeya barnaamijkeena waxaa kaloo lagu ogaaday daraasadda in iskuullada qaarkood ay ka bilaabatay tababar la siinayo macallimiinta oo ah mid soconaya 3 ilaa 10 maalmood, kaasoo la doonayo in lagu soo saaro macallimiin leh xirfadii looga baahnaa. Qaarkood waxayba u ahayd tababarkii ugu horeeyey ee macallinnimo. Mowduucyada ay qaateen waxaa ka mid ahaa hababka wax loo baro ardada, sida fasalka loo maamulo, iyo sida loo qorsheeyo casharada. Waxaana tababaradan isku soo dabariday dalladaha waxbarashada oo mararka qaar gacan ka helayay hay-adaha caalamiga ah. Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada ayaa xaqiijiyey in macallimiinta la siiyo tababaro, balse aysan ahayn kuwa si joogto ah u dhaca. Arrinka walaaca keenaya ayaa ah in aysan jirin tababar laga siiyo macallimiinta sida ay wax u bari lahaayeen ardada, gaar ahaanna kuwa maskax ahaan iyo muuqaal ahaanba ay dagaaladu waxyeeleeyeen. Dhegaystayaal, waxaa intaasi uga tegaynaa barnaamijkeenii waxbarashada. Dhegaystayaal, waxaa intaasi ku soo afmeeraynaa barnaamijkeenii waxbarashada qaybtiisii 11aad oo aan maanta uga soo hadalnay dowladda Ruwaanda markii ay ka soo baxday colaadaha iyo dagaaladii sokeeye, sideebaa isbeddel loogu sameeyey waxbarashada. Waxaa barnaamijka idin soo tebinayay aniga oo ah Qaasim Nuur Maxamed Aajaa. Taniyo intaan dib ugu kulmeyno barnaamijkan kiisa xiga, waa bahda Udgoon Media oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.